sheekh sa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh aabba ayaa dhintay waxa uuna ka tagay dhul waxayna ahayd xilligii uu dhintay muddo hore aabba kadib waxaa dhintay iyadoo aan la dhaxlin dhulkii qayb ka mida walaalahay haddaba walaalaha dhintayna wax awlaada kama tagin dhaxalkii wax ma ku leeyihiin walaalaha dhintay oo awlaada ka tagin dhulka waa la dhaxlayaa nimanka aabbahood ka hadhay baa dhaxlaya rag iyo haween hadday yihiin kuwa dhintay marka iyagoon la dhaxlin hadday dhinteen waxaan ka dhigaynaa iyagoo nool marka waa dhaxalka wax ka siinaynaa marka dambena waa la dhaxliyo haddii aabbiyo hooyo ay isu wada yihiin dhammaantoodna way wada dhaxlayaan haddii ay hooyadu laba ay tahay oo xagga aabba uunay walaalo ka yihiin oo qolada dee hooyadaa kulley dhaxalka dambe dee waxaa fiirinaya shar ama maxkamadda ama dadka dhaxal siinaya fiirinaya laakiin haftan hore dhaxalkii aabbo nimanka dhintay gadaashii waxaan ka dhigaynaa inay nool yihiin waan dhaxal siinaynaa dhammaan iyagoo dhintay markaan dhaxal siino kuway dhintayna waxaa dhaxlaya kuwa nool iyo waxaana dhaxal siini dadka dee markaa loo akhriyo iyo qaabkay kale yihiin sala allahu calaa muxamed